هذا وسلام baduna ay hadba dhinac inoo aadi doonaan goordhown waxaan ugu soo biiri doonaa xildhibaanadii mas-uuliyiinka oo nagala qayb geli doona xafladan islamarkaana iyaguna aragtidooda iyo guud ahaan waxaan rabaa inaan khudbadaha iyo guud ahaan furfurashada barnaamijkan u gudagelin waxaan rabaa inaan si gaara idinkaga codsado inaan hal marto u sacabatulno qofkan casuumay ee aan halkan u joogno ah filtan mutaahir waxay wanaagsan tihiin inkastoo leesha filtan inay halkan fadhiso oo iyaduna dhammaantiin halkan u joogtaan ka qaybgalka farxadeeda anaguna waxaan leenahay waa ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galno iyadoo oo weli qayb kale ay ku aflee oo si sareysa waliba aad ugula soo dhaweysaan gudoomiyaha golaha dhaqanka iyo midnimada shanta caleemood nabadoon aabe mukhtaar sheekh cabdi xaamud si uu noogu furo oo rasmi ah noogu furo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام الحمد لله رب العالمين الذي اختارنا بهذا الجمع المبارك كسوق القرياشة كمان مدحنا السرسرة وهريو اكس قدومي كوحيقين كيني خوري قبل كشغل هوسة اسلام مركزنا هذا أهل طريقها لنا arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wana Cabdifataax Cabdi Yuusuf Badaale xogayaha guud golaha samata bixinta beelaha awdigin Master Cabdinaasir Aweys Maxamed afhayeenka golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha shanta caleemood Yuusuf Cabdullaahi iyo dhammaan anoon hal mid aanan u sheegi karaynin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaan idinkaaga mahadcelinaa insha allahu tacaala ajibida aana soo ajibteen kulankan qiimaha badan waxaanan leeyahay insha allah ilaahay idin barakeeyo insha allahu tacaala dhammaan dhalinyaro iyo waayeel inta meesha timidba طبعا ما أنت أنا قاعد ماشي أرجع لما فرنا وحبطا أيام هذا لا أنجديه لكن وحل يقول وحيد هاي إن عن فرو ما دام تمرك في شأن حي لكن كذي هذا ورحمة الله وبركاته مدنيان مرويان شرف كسوق كشماشة آديات قف كستوى منسب كيسي وممكن كي أقسلامية ولا شيء في السنة قبل سافي عايزكو فصلين أفرسنا عايزكو كلاسين ووان بلينايا مادام isla soo gaarnay hadafkii ugu weynaa ujeedkeedu uu ahaa inaan ka maradhalno waxbarashadeena aad iyo aad ayla yaabnina hadalka iyo mikrofoonka isku fiicnaan saas la ajigeedu ahay asxaabta dhamaan anoo u hadlaayo walaashay Filsa Qalbi Saafi waxaan leenahay hambaliya waxaa la sugayaa gender balance iyo waxa la yiraahdaa wiilka in la fiiriyo waxaan rabaa inaad soo dhaweysaan cali ibraahim siidow isaguna saxaabta kamid ah 4 sano kala soo wada fadhiyaan wax badan ka yaqaana Mr. cali soo dhawow ila soo dhaweeya cali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan inta halkaas ugu imaatay madax arday dhammaan asxaab dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku xijinayaa anigoo markaa ku hadlaya magaca asxaabta TikTok waxaa sidaas oo ku magac tirsanaa daaciyiinta oo markaa ducaada isugu jirto aaladan maadaama halkaas aan ka socdo oo muhiimna ay tahay halkan ka socdo aan ka hambaliyeynayo aan farxadda la qaadanayo maadaama dad badan ay halka ay fadhiyaan aan ka turjumayo magac ahaan iyo mawduuc ahaan baan ka turjumayo waxaan ku qasbanahay halkan ka socono iyo meeshaan ka socono dhammaan inaan sheego anigoo u hadlaya magaca ducaada ku jirto aaladan TikTok-ga khaasatan iskaashi dacwo oo markaa halkan qaar ka mid ay fadhiyaan oo aan leeyahay
dhammaantiin anagoo wada jir ah waxaan kugu hambaliyeynaynaa farxaddan aadka aad ku qiimaha badan oo dhab ahaantii adag tahay inuu qof xaaladan soo gaaro waliba gabar ah waan ku hambaliyeynaynaa hambaliyaan kule walaasheedii waxaan raacsinayaa kalamateen oo ah dhiirigelin marka yani ayada aan siinayo dhammaan inta halkaan fadhiis aan siinayo dhiirigelintaasoo ah in qofka guulihiisa uu ka miro dhaliyo aad bay u adag tahay sababtoo ah waxaa jirta caqabado aad u fara badan oo qofka markuu wax baranayso wajahdo hadday noqoto dhan dhaqaalo dhan walba wax ugu imaan kara qofka inuu ka gudbana run ahaantii kartidaas qofka ay ku jirtaa ma aha wax fudud oo markaa intaan dhahan waaba hambalyo aan dhahan halka ugu gudbi karno arrin aad u culisa soo qabatay insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inta halkaa u harsana inay halkeeda kasii hayn doonto insha allahu tacaala saafi hambalyo halkeeda kasii insha allahu tacaala dhammaanba marti sharafta iyo mas-uuliyiinta iyo kasoo munaasabadan maanta aynu ku maamuusino walaashiin filsan gabadhaan adeerka u ahayd waa ujeedaan inaan dididayo soo ma qandhaay haysay laakiin waxaan ka joogi kari waayey macallin ma wanay jaamacadeed arday qalinjabinaysaa waxa iigu dhigan yihiin macno gaar ah markay gabdha yihiinna waxay kasii leeyihin maxay mudaan gaara soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii wiil wax la baro qof baa wax la baray laakiin haddii gabadh la baro hee maasha allah filsan hambalyada maanta halkan aan kaaga jeedinayno macnaheedu waxay tahay inaan ku faraxsannahay guushanaad gaadhay macnaheedu waxay tahay inaan ku faraxsannahay gabdhihii aad isku fasalka ahaydena maanta kula jooga dhammaantood inaan ku faraxsannahay macnaheedu waxay tahay gabdho iyo wiilalba sanadkan ciddii kula qalin jabisay inaan farxaddaas la wadaagayno inta kale u dhiman tahayna insha allah waxaan ka rajaynaynaa iyaguna inay guulaystaan waxaan rabaa inaan dhinacyada asxaabta nala joogtaan siiyo fursadahooda doonaya in ay la qaybsadaan walaasheen farxaddeeda iyo qiimaha ay ugu fadhiso mudnaantan ay leedahay habeenkan inaan qof kasta wuxuu jecel yahay wax gooniya inuu soo bandhigo qof kastana wuxuu leeyahay joyce isaga u gooniya oo aan lagu qabsan karin maadaama casuumadan waa fidisay wax yar salaan turkiga laga soo dhiiban waa waday filsan waxaa rajeynaya inay guddoonto liibaan cumar geedo haddii aan soo jeediyo waxaan kole qofba waxay soo jeedisa dad nashiidii soo jeediyeen qofba waxuu yaqaan u soo jeediya marka goy waa qur-aankeenu malageesu gawayna waa dhambaal iyo fariin leesku gaarsiiyo garashada dasoon iyo murtida gaami gabadeeda bulshadowna gubaabiyaa gooriyo ayaale bal aan wixii garaadkayga kala soo gudbiya maanta sugaantaydu waa gaaba culus duniya baarkeeda cid kastoon galaas uga shubaa garata duuxeeda mana gadan iskuulna uma tegin geedna kama goosan dunuubkala iyo geedka nabadda aan raadiyaa kheerna lagu gaaro gabaasara inaan ahay bulshadu ay garataaye inkastoona cadow iyo gacaliyayna raagi oo geesigii cabdiyarana subag la gaayaynin gaaray hadraabina ku dhicin geeshkii cabdi nuur fareyna aan ka gaabsado haddoo golo faniijo gabay waa nin dhoortee ninkaan garani yeelkii iyo dardaarankii oo ii geystay waan keliya laabtayda rabbi ha u gargaaray asaay dhiira gelisiiyey aabeena garabaankeeda miskiintiyo fuqrada midka dhiga oo maskaxdooda dejiya maajidkeena farkudhexmartaada guushada wad gaarasa goorune taasa xaqiiqa